gudoomiyaha guddiga qandaraasada ee Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen oo maalinimada shalay soo gaaray magaalada Cerigab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa saaka kormeer ku tagay dhismayaal loo dhisay laamaha dawladda ee kala duwan isla markaasina ay hore guddiga qandaraasada qaranka ee Soomaaliland hore u siiyeen shirkado kamid ah shirkadaha Soomaaliland ee dhismayaasha kormeerka gudoomiyaha guddiga qandaraasada ee Soomaaliland waxa ku wehelinayay barasaabka gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan iyo waliba mas'uuliyiin kala duwan goobaha gudoomiyaha guddiga qandaraasada ee Soomaaliland iyo waliba barasaabka gobolka Sanaag soo kormeereen ayaa kala ahaa garoonka kubadda cagta ee Daala Stadium airportka magaalada Cerigab iyo waliba madaxtooyada cusub loo dhisay magaalada Cerigab ee xarunta gobolka Sanaag iyo waliba xeeraalinta gobolka Sanaag oo yana loo dhisay dhismo cusub intaasi kadib markii uu soo dhamaaday kormeerka gudoomiyaha guddiga qandaraasada ee Soomaaliland iyo waliba barasaabka gobolka Sanaag waxa si wada jira warbaahinta ula hadlay isla markaasina ka warbixiyay goobaha ay soo kormeereen gudoomiyaha guddiga qandaraasada ee Soomaaliland iyo waliba barasaabka gobolka Sanaag iyo waliba mas'uuliyiin kala duwan xafiiska guddiga qandaraasada qaranka uu hogaaminayo gudoomiyaha guddiga qandaraasada qaranka Nuux Maxamed Xuseen waxaanu kormeer indhayn iyo dabagal ah mashaariicdii gobolkan ka socotay aanu ku nimi waftideedan uu hogaaminayo gudoomiyaha waxaanu soo marnay deegaano fara badan oo gobolka Sanaaga waxaan aad uga mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka iyo maamulka gobolka iyo saraakiisha amniga sida ay noo soo dhaweeyeen hadalka waxaan u hambaynayaa gudoomiyaha guddida aad waxaan u salaamayaa guddida qandaraasyada oo hogaaminayo gudoomiyuhu iyo agaasimaha runtii shaqadan ka socota gobolka ee ay dabagalka iyo indhaynta ku wadeen way ku mahadsan yihiin anagu ka wasaarad ahaan shaqada sida aragtaan inta goobood aanu soo kormeerayba warbixintii iyaga bixin doona tayada iyo tusaale aan ugu talagalay annagu wax allaal wixii loogu talagalay ay ku qaateen cidda dhisaysa ee guddida qandaraasyadu waa kuwa nala jooga ku bixiyeen baanu anagu controlaa wayna ku gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo mas'uuliyiinta kale gobolka Sanaag ee halkan ugu soo dhaweysay dhamaantood waan u mahadnaqaynaa inta markaan ka tago waxaanu kamid ahay guddiga hogaaminaya gudoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka iyo xubno komishanka qandaraasyada qaranka kamid ah oo u soo baxay inay gobolada Saaxil Togdheer Sool iyo Sanaag soo eegaan oo soo dib u soo qiimeeyaan qandaraasyadii la bixiyay qaarkoodna ay dhamaadka yihiin qaarkoodna ay wali socdaan hadda waxaan ku sugannahay magaalada Cerigab xarunta gobolka Sanaag madaarkii magaaladan ku sugannahay mahadcelin iyo soo dhaweyn horeyna isku nidhi goobaha aynu soo marnayna dhammaantood indhihiinaad ku soo aragteen waxaanu islaana ka gobol ahaan bal intaan laydin jeegarayn idinku sii jeegareeya horaan isku jeegaraynay oo mar walba waxay hawlaha guud iyo anagoo wada soconnaa tayada waanu la soconay dhismayaasha ka socda halkan kadib markii aanu warar badan ka maqalnay dhinaca galbeedka dhismayaal la dhisay dumay taxadirkooda anagoo qabna ayaanu maxaan ku dhaday mar walba jeegaraynta wadnay waad arkaysaan insha Allah dhismayaashu halka ay marayaan meel walba gabagaba ay ku socdaan ilaa imikana lama aanan kulmin wax halisa ama dhismo xumaa oo maxaan ku shirkadaha ee Cerigab waxaanu soo kormeernay mashaariicdii ka socotay degmada Cerigab waxaanu imikaanu taaganahay madaxtooyadii gobolka Sanaag degmadiisa magaala madaxda Cerigab ayaanu soo kormeernay si fiican ay u socotaa shaqadu wax kale aanu soo kormeernay airportka Cerigab oo ay shaqo ka soconayso wax kale aanu soo kormeernay xeer ilaalinta guud ee ay yeelanayso gobolka Sanaag waxaanu soo kormeernay garoonkii kubadda cagta shaqooyinkii qaar dhamaaday iyo qaar gabagaba Sanaag University iyo xarunta madaxtooyada iyo dhismo loo wado booliska taliska guud ayaan iyagana aan soo kormeernay shaqooyinkaasi si fiican bay u socdaan qaar dhamaaday iyo qaar gabagaba oo gacanta lagu hayo shirkadaha gacanta ku haya guddida horena way ula soo dardaarantay iminkana dardaaran labaad baan ku celinaynaa waxa laydii ka fadhiyaa dhismayaal tayo leh inaad qaranka aad u dhistaan Adnaan Cabdirashiid Ali telefishinka caalamiga ee Kalsan TV Cerigab.